Liverpool oo Man United kula dagaalamaysa saxiixa Carlos Baleba. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay Manchester United kula dagaalami doonto qadka dhexe ee Brighton of Albion Carlos Baleba, kaasoo noqon doona mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu waaweyn suuqa kala iibsiga xagaaga 2026. Ciyaaryahanka qadka dhexe ee xulka Cameroon oo Brighton ku qiimeysay 100 milyan ayaa horeba u soo jiitay xiisaha Man United, halka Liverpool ay hadda si dhab ah u fiirinayso iyadoo la filayo inay xoojiso dadaaladeeda bilaha soo socda. Baleba oo 22 jir ah ayaa si degdeg ah uga dhigay naftiisa ciyaaryahan muhiim u ah Brighton tan iyo markii uu kaga soo biiray Lille sanadkii 2023. Manchester United ayaa u aragtay beddelka suurtagalka ah ee Casemiro, waxayna qorsheynaysaa in xagaaga dambe dib u bilaabaan isku daygooda kadib markii ay ka niyad jabeen qiimaha sare ee Brighton ku dalbatay xagaagii hore. Si kastaba, xiisaha Liverpool ayaa xaaladda ka dhigi kara mid adag, iyadoo suurtagal ah in uu dhaco dagaal suuqa ah oo ku saabsan saxiixiisa. Baleba ayaa xilli ciyaareedkii 2024-2025 wacdar ka dhigay Brighton, isagoo dhaliyay 4 gool isla markaana caawiyay 2 gool. 40 kulan oo uu saftay kooxda dhammaan tartamada oo idil. soo dhawaada saaxiibayaal, habeen wanaagsan. Warbixintaasna waxay qayb ka ahayd barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha oo aan ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaamin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.